naag buta'ey ah ayaa kaamarada ku xirtay gees walba oo gurigeeda ka mid ah. Waxay ka shakisanayd in ninkeeda ka maqan uu khiyaamaynayo. Ugu dambayn wax walba sidii ay ka baqaysay ayay noqdeen. Ninkaasi wuxuu jacayl qarsoodi ah lalahaa saaxiibteeda ugu dhow. Si ay cashar uga dhigto, haweenaydu waxay guriga ku soo laabatay xilligii ugu xasaasisanayd qoftii qarsoodisa loo jeclaa. Waa ay argagaxday oo degdeg ayay isku qarisay. Waxayna gashay fadhiga hoostiisa, laakiin haweenaydii cayilnayd hal il ayay ku fahamtay khiyaanada. Waxay si ula kac ah ugu fadhiisatay kursiga, labada lugna kor ayay u qaaday si ninkeeda uu u masaajeeyo. Ninkii dulliga ahaa gudaha wuu ka qufacay oo wuu necbaa, balse haddana wuxuu bilaabay inuu u masaajeeyo. Hase yeeshee, haweenayda miisaanka culus waxay haysatay warbixin cilmi baaris ah oo awood u leh in ay beddesho goobta caafimaadka. Ninkii ayaa damacsanaa inuu warbixintaas helo si kasta oo ay ku kacayso. Wuxuu qorshaynayay inuu haweenayda iska diro isla marka uu warbixintaas helo lana noolaado haweenaydan hadda fadhiga hoostiisa ku jirta. Laakiin dabinkooda yaraa hore ayay haweenaydu u fahantay. Iyadoo iska dhoola cadaynaysa ayay warbixintii gacanta u gelisay ninkeeda. Ninkii markiiba wuxuu ku dhaartay inuu noloshiisa oo dhan u fiicnaan doono. Dabadeed wuxuu u jeestay saaxiibtiis, warbixintii ayuu gacmihiisa ku guddoonsiiyey. Labadooduba markii ay heleen warbixinta waxay bilaabeen inay qoslaan sidii inay dunida gacanta ku dhigeen camal. Waxay ka ballaariyeen haweenaydii oo ay ku yidhaahdeen doqon weynaatay. Laakiin yaa u sheego in tani ay tahay tallaabadii ugu horeysay ee argudashadeeda. Dab ahaantii haweenaydan kuusan ninkan ayaa nolosheedii hore ku ciyaaray, iyaduna si ula kac ah ayay u cayilantay si ay u dhammaystirto cilmi baarista kolestaroolka sare. Weligeed ma aysan filan in ninkaas uu shaqadeedii adkayd u gudbin doono saaxiibtiis khudbasirada. Waxay ku eedeeyeen haweenaydii in ay shaqadii cilmi baarista ka xaday. Ugu dambayntii haweenaydii waxaa cayriyey oo madmadow ku shubay dhammaan warshadii caafimaadka. Qalbigeeda oo jabay ayay nafteeda doonaysay inay dhammayso, laakiin saaxiib shaqo ayaa gacanta qabtay daqiiqadii ugu dambaysay. Liin, gacanta isii ayuu ku qayliyey. Isii daa, mar dambe ima haysan kartid ayay ku jawaabtay. Ugu dambayntii markii ninka xooggii ka dhammaaday, haweenaydii culays ugu dhacday jaranjarada, si daran bay u dhacday. Laakiin ilbidhiqsi kadib waxay dib ugu dhalatay 3 bilood ka hor wakhtigaas. Noloshan cusub marnaba looma ogolaan doono in la khiyaameeyo mar kale. Waxay go'aansatay in ay labadaas qasab u ciqaabto. Waxay gurigeeda ku rakibtay kamarado kormeer oo badan si ay caddayn ugu duubto khiyaanada ninka. Waxa kale oo ay si ula kac ah ugu dhiibtay warbixintii tijaabada, iyadoo sugaysa maalinta shir jaraa'idka si ay wejiga uga tumto. Kadib 1 bil oo tababar adag ah, haweenaydii si buuxda ayay uga takhalustay miisaankii dheeraa ee jidhkeeda saarnaa. Markii ay ninka la raacday xafladii soo bandhigista badeecada, xitaa ninkii iyo saaxiibtiisii khiyaanada lahayd ma aysan garan haweenayda caatada noqotay. Saaxiibtii khiyaanada lahayd waxay haysatay warbixintii, waxayna hortooda ka sheegtay in iyadu tahay qofkii cilmi baarista sameeyey. Markii haweenaydii aragtay muuqaalkaas, waxay ogaatay in daqiiqadii argudasha ay soo gaartay. Haddii Dr. Jane leeyahay xogta rasmiga ah, haddaba fura oo dadka tusa ayay ku tidhi iyadoo codkeedu degan yahay.